magaalada Buuhoodle xarunta gobolka ay waxa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay Caaqil Maxamed Saleebaan Cawad oo ka soo kicitay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxaa duleedka magaalada Buuhoodle caaqilka kaga hortagay waxgaradka gobolka ay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Nacay ugu dambeyntii caaqilka ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay isla gudaha magaalada Buuhoodle وعقل محمد سليمان عودي سودوينتا عقلك ayaa waxaan u kala hadhin waxgaradka gobolka Cayn iyo sidoo kale waxgaradka beesha Wacays ayaan si diiran ugu soo dhaweeyay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn Caaqil Maxamed Saleebaan Cawad ugu horeyntii soo dhaweynta caaqilka waxaa ka hadlay Axmed Cabdikariin iyo sidoo kale waxgaradka gobolka Cayn iyo sidoo kale waxgaradka beesha Wacays ayaan si diiran ugu soo dhaweeyay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn Caaqil Maxamed Saleebaan Cawad والسلام يا دمان بلشدة شرفت له كسوق قيب كشيء أنت أصو مرتي إن السود ويان عاقلك بيش الرير وعيس هذا عاقل محمد سليمان عود أو كيمي هذا السواء أو هذا السوق قال المجال أنا وقلت إن يسول شوكتو عاقلك dadka soo dhaweeyay waanu mahad celinaya waxaan halkan ugu nimi inaan soo dhaweeyno caaqil maxamed Saleebaan Cawad caaqilka beesha reer Wacaysaadan waanu soo dhaweynaa bulshadana aad baan ugu hambalyeynaya ugu mahadnaqaya soo dhaweysay caaqil ku soo dhaweey magaaladaadii iyo dadkaagii oo ku sugaya oo ku heelan gacmo furan ku soo dhaweey waji furan ku soo dhaweey waxaan u dhiibayaa oo haddana ku soo dhaweynayaa caaqil Cabdirashiid waxaan salaamayaa bulshada soo dhaweysay caaqil Maxamed Saleebaan hambalyo baan waxaan leeyahay si iyagana waxaan u soo dhaweynayaa kaliya kalsooni leh oo u leeyahay maxabo ayaan u soo dhaweynayaa waxaan aad u salaamayaa caaqilka cusub ee aan soo dhaweynay ee safarka dheer soo maray waxaan isagana ugu hambaleynayaa ilaahay inuu ka dhigo kii beesha iyo dadka iyo ummadda anfaca ilaahay inuu ka dhigo waxaan ku soo dhaweynaynaa caaqil Maxamed Saleebaan Cawad caaqilka beesha reer Wacaysaadan waxaan ku soo dhaweynaynaa si mid iyo miisaan leh si kal iyo laaba bulshada soo dhaweysay igala qayb gashay soo dhaweyntiisana aad iyo aad baan u salaamayaa Afrika boqolkan ku salaamayaa asagana waxaan kula dardaarmayaa ama ugu ducaynayaa ilaahay kii xilka loo doortay iyo caaqilnimada anfaca ilaahay uu ku kashifin kor u qaada beeshiisa asagana saasaan ugu ducaynayaa waxaan kala u sheegayaa bulshooyinka gobolka Cayn وعاقلكيني ومحمد سليبان عود عيك عسوق مقعدير ياهي قرانيسان فرفور عورديسي وحقبت كيسي ميسانكو كل ياهي قبل كعين وادوكتين ونسوي لدويننا كما عفرنا نسوي لدويننا السلام عليكم يا سيدي هذه الطبنكة وحنسوي لدويننا محمد سليبان عود ومو كحيبهان هوري كركو حسنا عاقل كسو دوو قبل كعين عقاشيسا أدوك صابيري بقول كيف بقول بانو كوجو سو دوينا سنة كانوا سنة عقالات عاقل بكي حد الله سوق هذا خلافة ولي شيطان وي وان سو دوينا عقاشي هراء يكون صوص عدا مناسبة دي كل حتنا بيش عاقل كم يبان كسو مجعوني كيبات كسو بيرتي قبل كعين بات كسو بيرتي والنع في سوق كردي ومدحنimo soo kordhay mafruud baan u leenahay asalaam halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa bulshooyinka reer gobolka Cayn ee soo dhaweysay ee ka hortagtay Maxamed Saleebaan Cawad oo ah caaqil cusub oo reer Wacaysaadan oo taraag badan u soo galay caaqilnimada lala socday meel walba laga hogaaminayay waxaan u soo dhaweynaynaa qalbi furan iyo gacmo furan iyo hambalyo leenahay waxaan ku soo dhaweynaynaa caaqil Maxamed Saleebaan Cawad isagoo uga soo noqday dalfog isagoo ku sii jeeday markii hore beeshu ay u matay caaqilnimo isagoo u sii socday markii hore Mareykan iyadoo aanu dooranay inuu hawlaha beesha reer Wacaysaadan si kuwa dhulbaantaba waxqabadkeeda ay macnaha ay ka maarmiyeen inuu Mareykan uga soo noqdo waxaan leenahay caaqilka ilaahay mid jira isaga kuwa kale hadda la midkee taagan bahay aynaga yeelo kuwa waxqabadkooda maanta caaqilada cusub ee dooranay waxaynu dooranay wadan kuwa dantii hore iyadoo kuwa hore gabeen danaha dadka iyo danaha beelaha in macnaha ay laga xoojiyaan waxaan leenahay Allah idinku garab istaago caaqil Maxamed Saleebaan Cawad
wuxuu ku soo biiray caaqinta cusub ee gobolka Cayn ama Dhulbaante gaar ahaan reer Wacaysaadan hambalyo leenahay xilka Allah ku fududeeyo caaqinta cusub ee beesha Wacaysaadan oo garaadka beesha dhalinyarada ee buuhoodle caaqil soo dhawow haddii ay u malaysina lagu soo dhaweyn caaqilada ku soo dhaweynaa dhalinyarada ka soconaa dhammaan caaqil waxaan ka qoranayna soo dhawow ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay caaqil maxamed Saleebaan Cawad isagoo u mahad celiyay dadka ku soo dhaweeyay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolkan Cayn. Sida Maxamed waxaa salaamayaa kooxda iyo bulshooyinka soo dhaweysay aad iyo aad baan u salaamayaa waa ku mahadnaqayaa sida loo sheegay beesha ay dooratay iyo beesha caawa Buuhoodlaba caawa saan ugu soo noqday aan ugu shaqayn jiraan ugu shaqaynayaa hambalyo fiican baan hambalyaynayaa waan idinku mahadnaqayaa wixii dambe waraysiga ama hadalna dib baan ka dhiganaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Saleebaan Cawad ayaana loo kala hadhin iyadoo maanta si diiran loogu soo dhaweeyay gudaha magaalada Buuhoodle Chief Caaqil Maxamed Saleebaan Cawad. Xuseen Xasan Cadde, telefishinka caalamiga Ariel TV magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn.